goobtu waa Muqdisho xilliguna waa 2003 deeqo waxay ahayd ardayad dhigata mid kamida iskuulaadka degmada Hodan ee magaalada Muqdisho waxay ahayd gabar fahamkeedu u dhaafiyay asaageed markii imtixaanka loo kacana kaalimaha hore ayay xaqiijin jirtay intaa waxa u dheeraa inay ahayd fariid ku firfircoon howlaha maamulka guriga iyo isku jaangoynta xisaabaadka waana tan sababtay in hooyadeed bitaaco oo hilibka iibin jirtay ay mas'uuliyadii reerka u dhiibto deeqo oo ilmaheeda kalena ay ka doorbiday dariskeeduna waxay had iyo jeer carabka ku hayn jireen wanaaga deeqa gurigooduna wuxuu ahaa goob shirisa gabdhaha oo aad u xiiseynayay sheekada deeqa waa tabintii shaacir haddaba daawadayaal si aad uga bogataan sheekooyin iyo qisooyin dhab ah oo quseeya waayaha nolosha ku xirnaaw oo subscribe saar beejkan cusub ee aayaha nolosha TV inala wadaag oo inoo soo dir maalmaha murugada iyo mahadada kugu beeray ee aan ka go'in xasuustaada adigoo fariin inoo soo diraya deeqo oo ku soo kortay agoonnimo qoyskooduna uu tabar yaraa ayaa aaminsanayd siday inoo sheegtay in tacliintu tahay tan keliya ee ay kaga tallaabsan karaan daruufaha dhaqaale ee reerkooda ku xeernaa haddaba deeqo waxaa soo maray xilligaa jacayl ku beeray xasuus aan qalbigeeda ka harin waxayna dooratay inay la wadaagto bulshada Soomaaliyeed iyadoo u marinaysa janalka aayaha nolosha TV waxaan maqli jiray jacaylku waa dab iyo holac hufa iyo dabayl kulul durdur iyo xareed maaxan dawo malab ah weeyaan dacaar iyo sun weeyaan laba dariiq mid weeyaan haddaba waxay adduunyada isku raacday inuu jacaylku yahay dareen dhab ah oo aan lahayn digniin iyo waan soo socdaa toona aan idiin dara waayihii jacayl ee deeqo waxay tidhi jacayl daran oo i beddelay ayaan u qaaday wiil aan iskuul ahayn jacaylkaasoo gilgilay qalbigayga kuna milmay dhiigayga wuxuu dhaqaajiyay dhuuxayga xasan wuxuu ahaa wiil aan ku dhegayay guudka qotonka iyo qaabkiisa wacan jooggiisa iyo jaahiisuna waxay ahaayeen bay tidhi fallaaraha uu ku soo jiitay qalbigayga wuxuu ahaa wiil aad u naxariis badan aadna ii soo dhoweeyey bilowgii jacaylkeena waxaan wada qaadanay maalmo aad u qurux badan oo aan ka harin xasuustayda wuu baahay jacaylkeennii wuxuuna gaaray in xaafadaha annaga uun lagu sheekaysto lamaane waxaa noqonay axad iyo ballamo wada qotomiyey kuna jaangooyey inay reer wada dhistaan naftayda wuxuu ku beeray jacayl ayaan weligeed arag laakiin keliya waxaa ina dabrayay bay tidhi wakhtiga maadaama aynu ahayn arday gacantoodu maran tahay waxaanse ku kalsoonayn inaan jacaylkeenna awgii wax kasta oo dhaqaale ah u abuuri karno taasina waxay sababtay in culays iyo cadaadis badan uu inooga yimaado dhanka wiilka waalidkiisa oo ahaa reer dhaqaale ahaan inaga wanaagsanaa una arkayay in wiilkoodu uusan u qalmin gabar ka soo jeeda reer sabool ah oo ku nool xaafadaha isku raranta ah ee ay Soomaalidu u taqaano cariishta waxaan la kulmay cadaadis badan oo markii dambe gaaray in hooyaday ay ii soo jeediso inaan gebi ahaanba isaga haro wiilkaas laakiin way ugu adkaatay inaan qaato go'aan iga fogeyn kara wiilka indhaha ii furay waxaa xoogaystay duufaantii ina kala kaxaysay cadaadis badan kadib iyo isku dayo lagu doonayay in xididada loogu siibo jacaylkeennii curdunka ahaa bay tidhi 2 sano kadib xiriirkeennii waxay wiilka iyo waalidkiis go'aansadeen inay Itoobiya u guuraan si ay dacwad dhanka Yurub ah u xareystaan oo qaar ka mid ah qoyskoodu uu deganaa
waxaan u arkay inay ahayd arrintaasi shirqool lagu doonaya in lagu kala dhantaalo jacaylkeenni bay tidhi. waayo badan adduunyooy ina raama badan leey, laba ruux walaalaa hadba kiirisi qaroon maxaad u dabarculaysaa, hadba ruumbe iyo hees riidmo ugu garaacdaa, kan kalena u rogataayoo ruugga ugu aasataayoo naxdin ugu rushaysaa, raciisa uga reebtaa. aad ayaan uga naxay bay tidhi markuu ii sheegay arrinkaa, waxaana ka dalbaday guur ka hor safarkiisa. wax kasta waxaa igala qaalisanaa isaga inaan helo, hase ahaatee wuxuu igu qanciyey in axdiga iyo ballantii ayaan waxba iska beddeli doonin oo aynu noqon doono kuwa jacaylkoodu guulaysta, noloshana ugu dambayn ka midooba. waxaan aad uga walwalayay sidaan la'aantiis u noolaan doono. noloshu wax micno ah iima samaynaysa bay tidhi haddiiba aan waayo muuqaalka kaan dheehanayay. laakiin dhawaqaygu ma ahayn mid dhaafsiisnaa uurkayga, isagana xujo waalid ayaa hortaalay. mana rabin inaan ka hor keeno waalidkii sababtoo ah kalsooni buuxda ayaan isaga ku qabay. waxaan u dhoweeyey subax arbaco ah xaruntii ay shirkadda diyaaradaha ee daalo ku lahayd xaafadda balaagsii ee magaalada muqdisho, halkaa oo ay ka raaceen gaarigii geyn lahaa aeroboortka. waan macsalaameeyey anigoo laabta ka oynaya, gurigayga ayaana ku soo laabtay anigoo luudaya sidii ruux bukaan ah. markuu tegey waxaan ula xiriiri jiray sidii isagoo xamar ila jooga. waxaan u dhexayn jiray internetka iyo baranjiga taleefanka, hase ahaatee marba marka ka dambaysa waxaan weynayay xiriirkiisii, waxaana sii yaraanayay rabitaankii uu ii haayay. jacaylkeennii wacnaa wuxuu waayey waraabkii, ilaa aan waayo markii dambe fariimihiisa taleefankiisiina uu damo. waxaan la ildarnaaday bay tidhi jacayl aan la kaliyoobay. xilli kasta waxaan ka fakiraa qof aan niyadba ii hayn. fariimahaygu kala joogsi ma lahayn, wicitaankayguna xad iyo xuduud xakamaysa toona ma lahayn bay tidhi. waxaa iiga imaanaya qalbigayga su'aalo badan oo cabsi iyo quus igu abuurayay. haddana waxaan ku qancinaya naftayda inaan axdi wada dhigannay kaan dunida ka doortay. kama daalo inaan eega qaybta fariimaha ee hotmailkayga, mana hela jawaabaha. waxaan weheshan jiray mar kasta suugaanta rajo soo celinta ah, iyagaana ii ahaa saaxiibka keliya ee sida dhabta ah dareenkayga u daakhila. dhiifanaan iyo dhiiranaan ayaana ka sii qaadi jiray. waxaan ka haray iskuulkii, muuqaal ahaan qofkii i yaqaanayna ima aqoonsanayn bay tidhi. sidaan u ilgo'ay waalidkayna dhakhtar iyo dabiib way igala quusteen, culummo iyo caamana way haleeli waayeen. cudurkan cilan ee aan la jiirgo'ay wuxuu waa jacayl. hooyaday oo si hoose ula socotay xaaladayda kuna mashquulsanayd maaraynta marxaladan adag ee aan martiyey, ayaa ii soo jeedisay mar uu 2 sano sii maqan yahay, dhawaq iyo dhambaal toonana aanan ka hayn, inaan guursado wiil aan qaraabo ahayn oo ganacsi ku lahaa isla dalka Itoobiya. hase ahaatee taasi way igu adkaatay inaan sameeyo maadaama aan balan iyo axdi wada dhigannay. qof igu qaali ah qalbigaygana aan ku qoray isaga uun keliya.
hooyadayna markasta waxaan ka codsan jiray inay fursad isiiso laakiin markaan samirku wuu ka soo dhammaaday oo waxay ugu tidhi hooyo nin keenso ama guurso kan aan kuu keenay aniga mustaqbalkaaga ha ku seegin wiil kaa tashaday iyadoo isla markiina ilin ay soo dhaaftay indhaheeda haddaba daawadayaal intaa waxaynu ku soo afjaraynaa qaybta koowaad ee waayihii jacayl ee deeqo si aad ula socoto qaybta labaad iyo qisooyin kale oo badan fadlan sabskraib saar barteena youtube